بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. waxaan jeclahay caawa inaan shacbiga Soomaaliyeed oo meel kasta ay joogaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto inaan kala hadlo oo ugu hambaliyeeyo xuska munaasabadda xuska maalinta 15 bisha May oo ah markii dhalinyaradii 13 ahayd 1943 ay go'aansadeen inay ummadda Soomaaliyeed u raadiyaan xornimo iyo dowladnimo xisbigii Labour ama ururkii Labour markii hore waxaa la oran jiray SYL Somali Youth League ka bacdina isu bedelay xisbi dalka xukuma markii xorriyadda la qaatay. run ahaantii waxa weeye xusuus dhinacna farax leh dhinacna murugana leh. dhinaca faraxa waxa weeye inaan xorriyad ka qaadanay isticmaalkii na haystay 1960kii labadii gobol ee koonfurta iyo koonfurta Soomaaliya iyo waqooyiga Soomaaliya oo midna waqooyigana Ingiriisku gumaysanayay koonfurtana uu gumaysanayay Talyaanigu oo xorriyaddaas maanta jamhuuriyadda Soomaaliya la yiraahdo calanka leh ay dhalatay. murugadeedu waxa weeye 1991kii dadaalkii noocaas ahaa oo intaan la ekaa oo ummad ku xorowday ummad gumaysi ku jirtay ee xornimo ku qaadatay in hal mar uu burburay oo dagaal qabali ah lagu burburiyey dagaal aan indhiya dhaga lahayn oo wax sense ah ama wax caqli aan ku dhisnayn lagu burburiyey hantidii qaranka dowladnimadii qaranka sharaftii qaranka karaamadii ummadda Soomaaliyeed ilaa maantana ay liicsan tahay oo dowladda ha dhalato ha jirto laakiin tabartii dowladdaas aysan awood u lahayn inay dalkeena midayso nabadgelyana ay ka dhigto. dowlad gaamurtay oo 30 jirana oo aabbayaashii iyo awowayaashii ay kusoo dhinteen lagu burburiyey waxaan macno lahayn oo qabyaalad iyo wax hoose ah. maantana aanu ka qoomameynayno run ahaantii inteeda badan qofkii aan fahmin oo aan ka qoomameynayn maanta haddii isaga aan bijirinba laakiin dadka intiisa badan ummadda Soomaaliyeed 8 bishii Febraayo sanadkan ayay muujiyaan inay dowlad aad u doonayaan dowlad Soomaaliyeed oo sharaftoodii iyo karaamadooda soo celisa oo gobonnimadooda soo celisa oo gobonnimada ka saarta oo xornimada ka saarta oo dhalinyaradooda badda ku daadanaya muxuu ahayto iyagoo ka cararaya dhibaato dalka ka jirta iyo shaqo la'aan iyo fursad la'aan ka joojisa muxuu ahaa dowladdaas oo loo baahan yahay inay iyadu hantidoo hanato intaasoo dhan aan soo sheegay ummaddana ay u soo celiso karaamadii iyo sharaftii. marka waa labada arrimood oo isku darsan weeye laakiin midda murugada baa waxaa loo bedeli karaa iyadana farax oo waxaa loogu bedeli karaa in intaan sheegay dowladda in la taageero hadda jirta ummadda Soomaaliyeed inay dowladnimo isu diyaariso qabiil inay ka baxdo aragnay kharaarka qabiilka iyo dhibaatadu leeyahay waa aragnay muxuu ahayto khasaarada nafeed iyo midda maaliyadeed iyo midda sharafeed iyo midda karaamo nagu dhigay dagaalka sokeeye iyo qabyaaladu waa aragnay. marka annagoo xusayna maalintaas iyada sharafta leh raggaas Allah u naxariisto 13 dhalinyaro ahaa oo aad ogtihiin oo aqoon ahaan iyo meesha ay ka joogeen hadda markii adduunka loo eego iyo hanti iyo technology-ba haddana dadka Soomaaliyeed meel kastay jiraan gobolka ay degan yihiin oo geeska Afrika isku xiray mideeyay isticmaal ka saaray waxay mudan yihiin inaan una ducayno kuna dayano oo aan maantay muxuu ahayto dhibada u aasno jamhuuriyaddii labaad ee Soomaaliya tii hore koowaad hadday naga burburtay jamhuuriyaddii labaad oo midnimada ummadda Soomaaliyeed soo celisa karaamada noo soo celisa xorriyadda noo soo celisa. dabcan xorriyad wax ka wanaagsan ma jiraan waad ogtihiin oo dadka xabisan wax xabsiyada ku jira wax kaloo loo geystaa ma jirto cunno waa haystaan meel ay seexdaan waa haystaan TV waa fiirsadaan hadday rabaan
meelay ku cayaaraan bay haystaan, meelaha qaarkood waddamada horu maray oo kale waa yani nolol fiican bay ku nool yihiin, laakiin waxa ka maqani waa xorriyaddii waa laga qaaday, meesha rabaan mari karaan xabsi bay ku jiraan. marka xorriyaddu waa ka qiimo badan tahay wax kasta. annagana hadda iyadii waa maanta naga maqan, annakaana sababa xoogga ugu badan oo khasaarada noo soo gaartay annaka xooggeena wey. dadka ajnabiga haddaanan annagu hoosta kaga jirin, haddaanan annagu u kala qaybsanayn, haddaanan annaga qaarkayo aysan u ahayn dabadhilif, dee ma dhacdeen sidaan. waxa weeye ilaahay iimaanka nagu sugo, awoodaan leenahay, xoolahaan leenahay, hantidaan leenahay, qarankaan leenahay, dhulkaan leenahay, oo aada iyo aada u wanaagsan, oo aada iyo aada u buuxa. waddamada kale wixii ku jira waa la dhamaystay, waddankaana waa dihin yahay. waxaad ogtihiin hadda in daraasaadka ugu dambeeyey oo la sameeyo in Soomaaliya ay leedahay depositka ugu badan oo petroolka Sacuudiga aan ka horeyno. waxaad ogtihiin badda Africa ugu dheer inaan leenahay, waxaad ogtihiin xoolo badan inaan leenahay. war khayraadkaas ilaahayna siiyey oo midnimo haddana noogu daray, oo dhulkaanu degannahay oo ah dhulka ugu istaraatiijisan caalamka, oo tijaarada caalamku 3 meelood oo 2 meelood ay marto, ama 1 meel marto. intaas ummad la isugu daray way yarta. marka inaanu ilaahayna ku shukrino, lain shakartum laaziidannakum walain kafartum ina cadaabii lashadiid baa ilaahay yidhi. haddaad nimcadayda ku kufridaanna, haddaad ku shukridaan nimcadayda oo ilaahay aad igu mahadnaqdaanna waa idin kordhinaya baa ilaahay leeyahay. haddii aad ku kufridaanna cadaabkaygu waa kulliyaha, macnaha ciqaab baad ku mudanaysaan wey. ummadda Soomaaliyeed waxaan mar labaad iyo mar saddexaadba ugu hambaliyeynayaa maalintaas beriya in la karaameeyo, loona duceeyo waalidkeen xorriyadda kusoo dhintay, kusoo dagaalamay. aniga aabbaha iyo hooyadayba waxay ahaayeen qoys waxaan kasoo jeedaa leega ahaa, oo dadkii xorriyadda usoo dagaalamay ka mid ahaa. 13 iyo intii kaloo Soomaaliyeed ee la qabatay, in loo duceeyo, isla markaasna lagu daydo raadkoodii, oo qarannimadii Soomaaliyeed soo celiyo, hubka la dhigo, lays ictiraafo, lays qaato. qofka Soomaaliga ah nasiib dar hadduu qof Soomaaliya arko dan uma galo, laakiin markuu qof ajnabi arko waa uu soo dhaweeyaa. marka in arrintaa la bedelo weeye. ilaahay waxaan ka rajaynayaa in dowladdaana ay socoto oo si wanaagsan u socoto, ummadda Soomaaliyeedna ay ka saarto dhibaatada. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu.